dadkii jannada qiimaheega gartay waxaa ka mid ahaa saxaabatu muxamed haweeney madow ayaa nabigeenna u timid oo markaa ka cabanaysay xanuunka la yidhahda qalalka suuxitaanka way dhici jirtay markaasay nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah anigu waan suuxaa bay ku tiri waan dhacaa waa xanuun aad u daran weyn xanuunkaasi allah inaga badbaadiyo dadku hayaan allaha ka qaado waa xanuun qofku meelsha uu ku dhaco uusan ka warqabin uu miyir daboolsamaya gebigiisuba maankiisoo dhan baa tagaya markaasay nabigeenna u timiday tihi innii usrac wa innii atakashaf fadcu llaha tacaala lii an laa atakashafa yaa rasuulallah jidadka ayaan ku dhacaa waan suuxaa deedna markaana marada ayaa iga baylahanto waa lay arkaa ilaahay ii weydii bay tihi xanuunka ilaahay inuu iga qaado maraduna ay iga baylahmin markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi in shiiti sabarti walaka aljanna haddaad doonto janno ayaan haddaad doonto waad u sabri xanuunkaasoo janna ilaahay kugu siin doonaa innamaa yuwaffa asaabiruuna ajruhum bikayri xisaab dadka adduunyada dusheeda ku sabre ku adkaysta balaayadii masiibada la soo darista thawaabkooga janna ilaahay ka dhigaya ajarkooga bilaa xisaab baa ilaahay siinaya haddaad doontona waan kuu ducayn ilaahayna caza wajalla inuu kaa caafiyo xanuunkaa baan kuu baryi markaabay tiri waan isku noqonay ii kaadi deedna way soo noqoto nebigay u timiday markaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi yaa rasuulallah waan iska adkaysanaye ilaahay janno ii weydii bay ku tidhi bas iska daa marba haddii janno lagu helaayo halkaa ku dhaaf laakiin mid ilaahay ii weydii meeshaan doon ha iskaga dhace marada inay iga baylahmin bas iyadoo miyir daboolantay oo maankaygii uu tegey ayay xishoonaysaa ay cawradeeda dhowranaysaa maantana innaka waxaa laga yaabaa gabdhaheenna qaarkood iyo maaragtaane gabdhahayna la dhashay qaarkood inay gabadhu jidhkayga halka ugu qurux badan ay istiraadaan ragga tusu ha kugu soo eegtaan waana calaamaatu aakhira zamaan nebigaa sheegay laba qole adduunka iman buu nebigu yidhi oo soo socota qolo jeeda la wato oo dadka dariiqyada intay qabtaan ku garaacaya iyo gabdho maaragtaane ismoodaya dhar inay xidhan yihiin wada qaaqaawan buu nebigu yidhi kuwaa jannada gali maayaan jannada inay galaan iska daaye carfiga jannadana urini maayaan carfiga jannadana waxaa la uriya udgoonkayga 500 oo sano marka jannadu kuu jirto ayaa udgoonkaygu qofka soo gaadhaa labadaas sinfi buu nebigu leeyahay hadda arki maaye waa rag budad bay wataan oo dadka dariiqyada intay ka kaxeeyaan ayay la dhacayaan oo gardaray qofka u garaacayaan iyo gabdho maaragtaane dhar inay sitaan bay ismoodayaan kaasiyaatun caariyaad baa nebigu yidhi dhar inay xidhan yihiin bay moodayaan dharna ma xidhno way qaawan yihiin baa nebigu yidhi maa'ilaatun mumilaat jidadka markay marayaanna way isqalqalloocinayaan wixii meelaha rag ag joogana way qalloocinayaan buu rasuulku yidhi sidaa isku qalqalloocinaysa ragguna sidaa usii eegayaan ula qalloocsamay mid baa lagu yidhi war ha eegina indhaha gallaabo wazayannaaha linnaadiriina buu yidhi laa xawla walaa quwata illa billah jannada gali maayaan buu nebigu yidhi kuwaasi carfiga jannadana heli maayaan jannadana markay carfigeega waxaa la helaa 500 oo sano markay meesha loo socdo qofka u jirto gabadhan muuminadee saxaabiyadee madow ayadoo maankaygii iyo miyirkaygii uu daboolmay ayay ka fikiraysaa inay cawradeedu aysan baylahmin markaabay nebiga ku tidhi xanuunkaa haddii janno ilaahay igu siinayo iska daa laakiin meeshaan doon han iskaga dhace maradu inay iga baylahmin bas intaa ilaahay weydii xishoodku fiicana haweenkana ku sii fiicana waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ibnu cabbaas allah raalli ka noqdee ayaa zamankii dambe taabiciintii dadkii markaa nebiga aanan soo gaadhin ee saxaabada nebiga soo gaadhay buu ku odhan jiray alaa uriika imra'ata min ahli ljanna haweeney ahluljanna ama ku tusaa markaa bay odhan jireen haa haweenaydaa madow ee halkaa maraysa waa ahlaljanna buu odhan jiray ibnu cabbaas cataa ibnu abi rabax buu u tilmaamuu ka yidhi cataayow haweenaydaa madow soo ma arkaysad haa waa ahlaljanna weeyaan haweenka jannada galaya aad bay u badnaayeen maalin gabadh baa tidhi 10 mubashiriina biljanna baa la sheegay hawa dumarkii jannada gelaya hamaa la sheegay khadiija radiyallahu anha almu'miniin
mubashira biljanna keligii jibriil calayhi salaam ayaa samada uga yimiday markaabuu nabigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam wax kale ma sido allaha salaamku salaam ka wadaa ayuuna u sidaa khadiijata alkubraa radia allaahu canha umma almu'miniin buu u sidaa uu yidhi yaa muxamed umma almu'miniin khadiija allaha salaamkaas soo salaamayey waxaana laygu yidhi u bishaaree qasri jannada ku yaalla ilaahay u diyaariyey ummu anas binu malik rumaysaa am rumaydaa ayadana waa mubashira biljanna oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ku yidhi ummu sulaymey xalay toole jannada ayaan galow ilaahay i tusay adoy hor socdana waan ku arkay buu rasuulku ku soo yidhi faatuma ina muxamed calayhi salaatu wasalaam waa iyaduna waa mubashira jannada waa loo bishaareeyey oo nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi faatumata bintu muxamed sayidata nisaa'i ahli aljanna inantaydaa faatuma buu rasuulku yidhi haweenka ummadda nebi maxamed ee jannada geli doona waa gabadha ugu darajo sarraysa ugu barwaaqa badan buu rasuulku yidhi sumaya radia allaahu canha iyaduna waa ahli aljanna oo iyada iyo ninkeedii iyo inankeedii cammaar markuu nebigu dul yimiday ayakoo magaalada maka dhagaxdeeda iyo jagaceega lagu cadaabayo waa markay diintu qariibka ahayd ee maka la cadaabaya mu'miniinta ee qurayshi ay cadaabaysa saxaabada rasuulka ayuu nebigu kor yimiday sumaya waa ummu cammaar iyo odaygeygii yaasir iyo inankeygii cammaar oo la cadaabayo markaasay yidhaahdeen addahru haakada yaa rasuul allah sanadka oo dhan annaku ma dhibka iyo cadaabkaa baan ku jiraynaa markaa buu nebigu yidhi sabran yaa aala yaasir fa ina mawcidukum aljanna sabra buu nebigu yidhi adkaysta abaalkiinu ininka waa janno weeyaan hadday jannada ay maqlaan waxalii waxa dhibaato adduunyada la soo daristo dhan way halmaamayeen iyagu way bugtaa haweeneydaa madow eeg xanuunkay qabta eeg way dhacaysaa suuxdin bay leedahay laakiin markuu nebigu ku yidhi haddaad sabri lahayd janna ilaahay kuugu bedeli lahaa iska daa bay ku tidhi bas halkiisa ku dhaaf